waxaan weli ku guda jirnaa daawadayaal barnaamijkii muuqaalka bulshada oo si toos ah idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho ee xarunta dalkani Soomaaliya qaybta labaad ee barnaamijka muuqaalka bulshadana daawadayaal waxaan kaga hadli doonaa shirkadaha kala duwan ee ku soo badanaya magaalada Muqdisho waxaa magaalada Muqdisho laga hirgeliyay warshad soo saarta noocyaha kala duwan ee caagadaha taasi oo iminka ku howlan inay soo saarto haaman waaweyn iyo caagado fara badan xasilooni laga dareemay caasimadda dalka Muqdisho dadka Soomaaliyeedna intii wadanka burburku ku jiray ay dibadjoogga ahaayeen qaarkood haatan ay dib ugu soo laabteen dalka markii xasilooni la isku haleyn karo Soomaaliya laga dareemay ayaa magaalada Muqdisho waxa qurba joogta gudaha dalka dib ugu soo guriyo noqday waxa ay ka bilaabeen in ay ka hirgeliyaan goobo ganacsi oo hor leh aniga oo ka duulaya arrimahaasi oo dhan waxa aan la kulmay Cabdiraxmaan Sheekh Abuukar oo ka mid ah dadka dibadjoogga ahaa ee dalka dib ugu soo laabtay Cabdiraxmaan Sheekh Abuukar waa maamulaha warshadda samaysa noocyada kala duwan ee caagadaha haamamka lagu shubto biyaha saliidda iyo batroolka iyo haamamka lagu fogeeyo qashinka waxaana aniga iyo asiga oo ku sii wajahan xarunta warshadda soo saarta agabyadaasi ee Samtang na dhaxmartay sheekadani oo salkeeda arintan yahay waa nadaafad darro xagga biyaha ku salaysan fikradda marka waxay halka ka coratay in aan halkeeda helno oo aan abaabulo qaabkii xal waara biyo nadiif ah meel lagu kaysado dadku ay community-dina hesho yani maaragtay maxalliga deegaankiina helo shakhsiguna uu helo qof walba iyo tabartiis tank oo caaga oo food grade ah oo loogu talagalay in cunto lagu kaydsado wax la cuno iyo wax la cabo sax ina u keeno warshad samaynaysa caag leeg intaas ilaa 5,000 oo litir ama 25 fuusto ama 30 fuusto ama 50 fuusto ama يعني ورشد يرمى warshadda Samtang waxa ay soo saartaa haamamka waaweyn iyo caagadaha waaweyn iyo yarba waa kan Cabdiraxmaan Sheekh Abuukar oo mar kale sharaxaad ka bixinaya qaababka kala duwan ee mashiinada warshadda ay u soo saaraan agabyadaasi waa mahadsantahay waxaan rabnaa inaan ku sheegno haanta hadda ku jirta horta waa 3,000 oo litir weeyaan waxa weeyaan double layer ama laba color weeyaan maartay qalabka laga hagaajiyay rinjiga koowaad waa rinji black ah oo ama madow ah colorka gudaha waa cadaan saas waxaan u yeelnay sifad dadku ay u arkaan hadii wasaqi gudaha uga dhacdo taasna waxa weeyaan dushana adkaysi dheeraada ama wasaqda maaragtay maxaa leedahay dulqaad qodobka kale oo jira wuxuu yahay qoraxda hadii ay muddo taalo iyo hadii maalin taalo iyo hadii 20 sano taalo inayna waxna iska bedelin kalarka iyo tayaduba taas waa balaaga oo maaragtay madowga dusha ah cadaanka gudahana wuxuu leeyahay antibacterial ama aalad la dirirta maaragtay maxaa leedahay mulmuliga iyo maaragtay maxaa leedahay bacteriaha iyo funguska ama algae ama maaragtay cudurrada biyaha ka dhasha inay la dirirto marka sidaa darteed laba kalar weeyaan dusha oo madow ah gudaha oo cadaan ah haddii la rabo dusha waxaa laga dhigi karaa blue gudahana waxaa laga dhigi karaa cadaan haddii la rabo waxaa laga dhigi karaa cadaan dusha عدان دوش الغدي كرا عدان كلنا جدها الغدي كرا والله laba galab weeyaan
marka saas weeyaan. marka goobo ganacsi ama wax soo saar laga yagleelo gudaha dalka waxaa shaqo abuur iyo aqoon kororsiba ka hela dad Soomaaliyeed. haddaba xaruntani samaysa caagadaha iyo haamamka ee Samtag ma ka howlgalaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo shaqo abuur ka helay? su'aashaasi waxaan weydiiyey Cabdiraxmaan Sheekh Abuukar. mahadsantahay walaal. dadka hadda si joogto ah oo full time halkan goobtan uga shaqeeya waa 12 ruux oo Soomaaliya oo dhalinyaro ah. waliba hadda qayb kale oo wali aanan qorinin ayaa maaragtay noo dhiman insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo. qayb kalena oo banaanka ka shaqeysa iyo kuwa kale oo marketing ah iyo kuwa kale oo maaragtay maxaa la yiraahdaa si indirect ah loo shaqaalaysiin doono oo ay ka mid yihiin kuwa yacni gobollada alaabooyinka loo dirayo sii iibinaya ama ka faa'iidaya ama ka ganacsanaya ama shaqo ay abuurayso. ilaahay hadduu yiraahdo fayska labaad markaan hirgelinana waxaan rajaynaynaa ilaa 30 iyo dhowr ruux oo si toos ah halkan uga shaqaynaysa ayaan rajaynaynaa. taas waxaa dheer waxa la yiraahdaa technology transfer ama cilmi barista oo dadkeenu ay dad noqonayaan adduunyada la jaan qaadi kara ama fahamsan qaabka wax loo hagaajiyo iyo maaragtay maxaa la yiraahdaa xirfadaha noocaasa inaan tababarno dad injineer ah inay dhaxlaan kalsooni ay ayagu wax qabsan karaan iyo cilmigii meesha hadda adduunku u marayo oo xagga wax fahamka dadkeenu dad fahma xun ma ahan laakiin jaanis uma ayna helinin 25 sano la soo dhaafay. intii aan ku guda jiray xarunta warshadda soo saarta haamamka iyo caagadaha waxaa dhaayahayga ay qabanayeen mashiinada warshadda oo xilligaasay soo saaraysay caagado iyo haamam waaweyn iyadoona ay ka shaqeeyaan rag isugu jira Soomaali iyo Kenyaan oo ka howlgala warshadda. waa kan Cali Aadan Guleed oo ka mid ah milkiilayaasha warshadda Samtag waxaana aan kula kulmay gudaha warshadda goor ay hawsha warshadda si aad ah u soconaysay. haantan 3 qaybood waay ay ku soo baxaydo taangu. qayb waa qaybtaas oo waa afka hore looga xiraa daawadana waa looga shubaa. qaybtan kalena waa lagu la xiraa. dhammaan haantan oo dhan waxay gashaa ovenka meesha lagu dubo oo dhabarkiina hadda horteena ku taala. waxay ku jirtaa 20 ilaa 25 daqiiqo. waxay leedahay meel loogu talagalay oo laga eego laga kontrolo inay dubantay iyo in kale inay sax u samaysantay inuu qalad ku jiro. waxa laga hagaa oo laga saxaa kombiyuutarka haantan dhabarkeeda hadda yaala oo gacanta lagu hago. sidaas awgeed muddada markay u dhamaato dibadda loo soo bixiyaa 20 daqiiqo ay ku xiraataa gacanka hadda ay saarantahay oo lagu dubay si ay u qabowdo lama taaban karo korkeeda. marka ay qabowdo sida hadda u jeedaan farsamada markay shaqaalo ay sameynayeen waxa laga qaadaa qaabkii loogu shubay ayaa laga hor bilaabaa haddana daboolka la furaa kan weyn laga furaa wareegga la furaa haanta la soo bixiyo. sida badan haddii ay jirto wax yar oo markaas inay ku hakato oo marar badan waa la subka waa la dufniyaa qaab loogu talagalay looga bixiyaa jirta si aan dhaawac u gaarin haanta. mudane Cabdiraxmaan waxaan arkaa in hareeraheena ay yaalaan oo caagadaha qaybahooda kala duwan istaambooyinkii laga sameeyay inay yaalaan bal ka waran qaababka loo sameeyo sharaxaad inaga sii. waa mahadsantahay walaal. waxaa jira istaambooyinkan waa astaantii ama qaabkii loo sameynayay ama uu soo baxayay caaga hanaankiisa. marka qaab waxaa jira qaab kala duwan ayaa loo hagaajiyaa caagadaha especially kuwa noocaana. marka istaambada ayaa horta bilaa u ah. dabadeed istaambada naf ahaanteeda waxaa jira stainless steel iyo mild steel. stainless steel waa kuwa noocaan ay ka samaysan yihiin waa quality-ga misna ugu sarreeya ee loogu talagalay aaladda lagu shubto waxyaabaha la cuno. marka saa u jeedidba dusha markaa ka eegtid waxaa u malaysaa muraayad inay yihiin oo maaragtay maxaa la sida muraayadda ayay u dhalaalayaan. shayga ay sameeyaanna dushiisa wuxuu noqonayaa sidib dhalaal way siinaysaa. taas waxaa dheer
wax qabsan karaya oo ama maaragtay maxaa la yidhahdaa bacteria ama wasaq ah ma jirto wasaqda way ka sidbanaysaa marka taas waxa weeyaan waa istaambooyinka ama moolka kuwa kale waxa kaloo dheeraad ah waxay leeyihiin siddi meel laga gashto oo aan go'aynin ayay leeyihiin oo xoog badan haddaad eegtid istaambooyinka yararka dhulka xataa kama qaadi karaysid haddana laba qof oo hataa iskugu nimaadno kuwa ugu yaryar taasna waxay muujinaysaa alaabta ka soo baxdaa alaab tayo leh ee jirmi leh ee cimri dheer ee muddo dheer ku oolaanaysa qurux badanna inay maaragtay maxaa leedahay soo saarto marka taas waa istaambooyinka weeyaan waa practical waa cost effective waa qurux wax shay aad u qurux badan yacni kaaga daranay waxa weeyaan meel wasaqay ka qabsatana male uu dhalaalaya intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa daawadayaal barnaamijka muuqaalka bulshada barnaamijka intii uu soconaya waxaa idiin daadihinaya anigoo ah cabdicasiis ibraahim axmed okeya dhinaca farsamada iyo kaamaradana waxaa iga saaciday mahadaan ka gaadhee saaxiibkay cabdirasaaq maxamuud jaamac muqusle tan iyo kulanto dambe intaan dib ugu kulmi doonno barnaamijka muuqaalka bulshada toddobaadka xiga waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo ammaano allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh